xilli caasimadda Tigreega ee Maqale ay wajahaysa saacado xanuun badan oo aan wax badan ka duwaneyn kuwii hore ay u wajahday sanadyadii TPLF ee halganku kula jirtay xukunkii militariga kaligii taliya Mengistu Haile Mariam ayaa haddana Addis Ababa ay cadaynaysaa waqtigan inay ku filan tahay soo afjaridda kooxda ay u muujinayso inay hadda jabisay awoodii ugu badnayd ay lahayd ee ismaamulka Tigreega ee badankiisa lagu qoray liiska soo qabashada iyo horgeynta maxkamadaha caalamiga iyo tan gudaha. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu sheegay inaan marnaba arrimaha gudaha dalkiisu ay gaar u leeyihiin oo aysan cidna waxba ka weydiinaynin isagoo ka jawaabaya sida muuqata hadalla ka soo baxay dawladda ay ugu horeysa Mareykanka oo muujiyay walwalka iyo walaaca ay ka qabaan xaaladaha isbeddelaya ee ka taagan gobolka waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigreega. si adag ayuu dhagaha uga furaystay baaqiyo caalamiya oo ka imaanaya dalalka reer galbeedka isagoo cadeynaya inaysan suuragal ahayn in laba awoodood oo siman ay ka jiraan gudaha Itoobiya dhinacna ka muujinaya inuu la dagaalamayo koox ka soo horjeeda xukun sharciya waa Abiy Ahmed. korneylkan ayaa qoraal ka kooban laba bog oo uu soo saaray kuna qornaa luuqadda Ingiriiska wuxuu sheegay inay Addis Ababa qadarin iyo xushmad u haysay sida caalamiga ee dalalka caalamku aysan faragelin aqbali kalin faragelin nooc kasta oo ay tahay oo laguna sameeyo gudaha dalkiisa sida ku cad buu yiraahday qaramada midoobay lagu dhidbay qodobka labaad oo ay tahay qaynuun caalami oo dhammaan dhinacyadu ay ku waajib ku tahay tixgeliyaan. dalal badan ayuu uga digay inay ku dagmaan waxa ugu yeeray dagaalka ciidamadiisu kula jiraan kuwa ka soo horjeeda horumarka dalkiisa iyo sharciga oo uu sii cadeeyay inuu ula jeedo TPLF. tani waxay dharbaaxa ku tahay dalalka qaarkood oo doonaya inay abuuraan jawi wada hadal taasna Abiy Ahmed wuxuu u arkaa mid halis ku ah joogitaankiisa xafiiska ugu sarreeya dalka Itoobiya laga maamulo. ma uusan magac dhamin dhammaan dalalka uu digayo haddana fariintiisu kama marnayn inay u janjeerto xagga reer galbeedka maadaama luuqadda qoraalka lagu qoray ay tahay mid si fudud lagu fahmi karo. Abiy wuxuu sheegay inaysan cidna ka aqbalaynin farangelin gudaha dalkiisa kuwa isku dayay wuxuu u muujiyay quus siyaasadeed iyo mid aysan waxba ku qaban karin waqtigan wuxuu muuqday inuu haysto awood uu ku qabsan karo magaalada Maqale oo ah ubuucda Tigreega ama caasimad goboleedka ismaamulka gobolkaas. nuqulada labada bag waxa aad looga hadlay dhibaatooyinkii ay geysatay TPLF waxaana lagu sifeeyay wax kasta oo xumaan inay geystaan oo ay sabab u noqdeen in la laayo ciidan dal leeyahay oo si nabada ku jooga lana abuuro kala qoqob iyo midnimo oo la kala dhantaalo ayuu ku sifeeyay dambiyo waaweyn oo ay tahay dhammaan dalalku iska kaashadaan sidii ciidii samaysan loo ciribtiri lahaa. dagaalka socda ayuu ku suntay mid lagu soo celinayo amni iyo kala dambeyn iyo sharciga dalkiisa oo uusan dalna yeeli karin in la kala gooyo gudaha dalkiisa. wuxuu ugu manna sheegtay dunida in meelo badan oo ka mid ah Afrika ay joogaan ciidamada Itoobiya oo u jooga howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo Afrika si ay nabad ugu soo celiyaan qaaradda oo dhan. taas ayay tahay dhammaan inaanu eegno sida Itoobiya aysan u ahayn dal doonaya mar kale kaligii taliya inay soo celiso. sida ka muuqata qoraalka Abiy Ahmed wuxuu wajahayaa cadaadis xoog leh oo faragelin uga timaada dalalka waaweyn oo qaarkood bilaabay ka digidda arrimahan gaar ahaan Mareykanka oo walwal weyn muujiyay. haddana xiriirka Mareykanka iyo Addis Ababa ayaa ah mid aad u dhaawacan kadib markii madaxweynaha xafiiska banaanaya Donald Trump uu lugtiisa ugu dambeeyay haraati adag ku dhuftay Itoobiya uuna ka jaray dhaqaalihi ammaanka lagu siin jiray Addis iyo inuu Masar u sheego inay weerarto biyo xireenka Itoobiya oo ah hal bowlaha ay shacabka dalkaas Itoobiya muddo dheer ku naawoonayeen inay arkaan isagoo shaqo galay. saacadihii loo qabtay jamhadda Tigreega madaxdeedu TPLF inay isku dhiibaan ayaa hadda dhammaad ku dhow waxaana la saadaalinayaa wajiga saddexaad ee dagaalka ugu culus oo ay dhinacyadu ku dagaalamayaan magaalada caasimadda ah ee Maqale. magaaladani hadda quruxda badan kobaca weynna samaysay 27 sano ee la soo dhaafay waxay martigelisaa nus milyuun qof oo u badan qowmiyadda Tigreega. haddii ay dagaal ka bilowdaan laguna diriro hubka culus shaka male inay u ekaan doonto magaalooyinka xilligeeda oo kala soo maray. is-arag gaar oo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xaaladda Itoobiya
waxba way ka soo bixi waayeen markii si cad ay u difaaceen dhammaan howlgallada Itoobiya labada dal ee leh codka diidmada qayaxan ama veto power-ka ee Ruushka iyo Shiinaha fadhiga ayaa natiijo la'aan ku soo ilaaday oo socon waayay markii labada dal bay adeegsadeen aysan marnaba aqbali doonin in ugu yaraan la cambaareeyo howlgallada military ee gobolka ka socda oo Itoobiya ay qayb ka tahay gaar ahaan Addis Ababa waxay sheegeen Shiinaha iyo Ruushku in tallaabooyinka la qaadan oo dhan ay yihiin kuwa muhiim u ah xasiloonida gobolka sida ay ku warrantay warbaahinta dawladda Itoobiya tallaabada ay xukuumadaha Moscow iyo Beijing ku taageerayaan howlgalka uu horboodayo korneelka sida fudud ku hantiyay biladda nabadda adduunka ee Itoobiyaanka ah Abiy Ahmed ayaa u muuqata xaalad kale oo cusub taasoo saameyn ku yeelan doonta mashaqooyinka hadda ka jira gudaha dalkiisa Washington ayaa u muuqata inay lumisay saaxiib weyn oo ay ku lahayd gobolka Bariga Afrika waxayna Mareykanku Itoobiya u isticmaalaysay muddo dheer sidii danaheeda ay ka lahayd Soomaaliya ay ugu mari lahayd laakiin waa xilliga ay hoggaanka hayeen TPLF oo ay iska kaashadeen mashruucii argixisa la dagaalanka oo balaayiin dollar ay ku hantisay Addis Ababa difaacidda heerkeedu sareeyo ee Abiy Ahmed u muujiyeen labada dal ee Ruushka iyo Shiinaha waxay uga dhigan tahay guur siyaasadeed iyo shuraako cusub oo ka difaaci karta fagaarayaasha caalamiga haddana dhinaca kalena waxay abuuraysaa utimo siyaasadeed oo si fudud meesha aan looga saari karin iyo siraac hor leh oo ku dhex mara gobolka dhammaan dalalka waaweyn ee isku haya dunida meelo badan oo ka mid ah